wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha galmudug ayaa xafiis cusub ka furatay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug waxaana munaasabada xariiq jarka xafiiska cusub ee laga hirgeliyay magaalada gaalkacyo kasoo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan galmudug iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku dhaqan magaalada gaalkacyo ugu horreyn waxaa xariiq jarka xafiiska ka hadlay gudoomiyaha gobolka mudug cabdirashiid xaasha cartan oo aan kasoo qayb galnay xafladii xariiq jarka xafiiska wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ay ku lahayd gobolka mudug sidoo kale waxaa sharafeenu maanta inay nala joogaan wasiiradii dowladgoboleedka galmudug oo uu ka mid yahay wasiirka tamarta biyaha oo u joogaan howlo shaqo iyo sidii loo dardargelin lahaa shaqooyinka ay ka leeyihiin ka wasaarad ahaan deegaankan gobolka mudug mudanayaal saad la socotaan isku dilaa wuxuu sheegay oo inuu hor magacaabaa laakiin wasiirku maadaama uu yahay wasiiradii madaxweyne axmed cali geeli xaafid uu dhawaan magacaabay waxaa inooga muuqata oo aan arkaynaa dardar ka gedisan wixii aan arki jirin isku duwaha waaga hore uu shaqayn jiray isagoo wakiil ah ku shaqayn jiray meel markaas isaga qaada laakiin maanta waxaan ujeednaa guriga weyninka badan leh oo wasaaraddu ay yagleeshay ee kasoo shaqaysay dhismaha weyninka badan leh mujtamaca faraha badan la isugu keentay rabta in ay daadihiso barnaamijyadeedii u gaarka ahaa oo ah shaqada iyo shaqaalaha saad la socotaan anaga ka maamul ahaan gobol shaqada iyo shaqaalaha waxay lagu tahay waxyaalaha wasaaradaha aan sida gaarka isha ugu hayno maxaa yeele waxaa la yidhahdaa shaqa la-aanta unemployment waxay afka qalaad ku yidhahdaan gobolkan wuxuu ka yahay meelaha ugu sarsareysa gobollada soomaaliya ka jira sidaa daraaddeed marka waxaan rajeynayaa maadaama wasaaraddii loo igmaday arrimahan oo xukuumaddii ka socota ay ahmiyad gaara siisay furitaanka xafiiska diyaarinta shuruucda iyo qawaaniinta shaqada iyo shaqaalaha sida labor actiga iyo waxyaalaha kaloo la halmaala waxaan aaminsanahay ka maamul gobol ahaan inay kaalin buuxda naga siin doonto qaar ka mid a dadkii kasoo qayb galay munaasabada xariiq jarka ee xafiiska cusub ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ay ka hirgelisay magaalada gaalkacyo ayaa sheegay in loo baahnaa in gaalkacyo laga furo xafiiska shaqada iyo shaqaalaha galmudug xafiiska kan waxaa ugu dambeysay dowladda maxaa siyaad baxay waxaan is leeyahay amni iyo dowlad baa soo noqday ilaahay naga mahadnaqaya wasiirkana waa ku sharfayna waxaan leenahay wasiirka jira noqo haddaad xafiis noo furtay gurina noo dhistay aan kila ahayn oo shaqada iyo shaqaalaha ah ku magacaaban mari wasiirkana intaasaan gaalo leeyahay waxaan ku darayaa xafiis cadaaladeed inuu noqdo oo xafiiskani xafiis qabiil lagu maamulo oo qoys lagu maamulo oo generation meelo kale looga yimaado oo loo runta uusan noqone qofka shaqaalaha magaciisa halkaa yaala tartan lagu galo bulshada deegaanka u dhalato wax u baratana laga shaqaalaysiiyo dhanka kale wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha galmudug axmed sharaf falagle iyo agaasimaha madaxtooyada galmudug ayaa dhankooda si wada jira uga hadlay in dadka reer gaalkacyo ay u baahnaayeen xafiiska shaqada iyo shaqaalaha galmudug salaam maanta waxaan dhihi karnaa gobolka mudug waxay u tahay maalin farxadeed oo maadaama la furay xafiiskii shaqada iyo shaqaalaha gaar ahaan dhalinyarada waxay u tahay maalin farxadeed waxaan aad ugu hambalyeynayaa in iyadoo muddo ay galmudug shaqaynaysay in haddana aysan suurtagelin maanta ilaahay suurtageliyay taas waxaa dhihi karaa waa aad bay maaragtay aan wasiirka uga mahadcelinaya in maanta xafiiskii la furo shaqada iyo shaqaalaha wasiiradana dabcan dee shaqooyinkooda ugu horeysa waxay tahay in meeshii saldhigga ahayd in la furo oo lagu shaqayn lahaa waxaa uu wasiirku soo diyaariyey xafiiskii caasimadda haddana waa xafiiskii laba ka furay aad iyo aad kaaga mahadcelinayna wasiir xafiis in la furo oo la furo wuxuu loo baahan yahay in la fahmo dadka waxaa laga rabaa inay fahmaan xafiiska wuxuu yahay cidda fadhidana waxaa laga rabaa xafiiska qaabka u fadhiyaan inay yaqaaniin maanta soomaaliya ciddii mas-uuliyad haysa ama federaal ha noqoto ama maamul goboleed ha noqoto ama dhinacay doonta ha noqotay 3 qof baa qof fadhiya kursigaas ee siyaasad ee meesha fadhiya qof qoys u fadhiya iyo qof qaran u fadhiya iyo qof quud iyo gurigiisa u fadhiya
waxaan rajeynayaa xafiiska shaqada iyo shaqaaluhu wuxuu ka mid ah xafiisyada kulmiyaha shaqaalaha weynaha galmudug oo annagoo kale hadda wasaarada kalena uu ka duwan yahay inuu xafiiska halka ka furo biyaha iyo tabartu noqonaya laakiin xafiiska shaqada iyo shaqaaluhu shaqaale weynaha galmudug kulminaya waa boondada isku xirta magaala madaxda iyo magaalada kale waa boondada isku xirta adoo halkaan jooga inaad ka warqabto dhuusamareeba xarunta iyo goobta dowladda wasiiradu degan yihiin waxa shaqo yaala in ay xafiiskan uu soo gudbiyo weeye waxaa baahi ah halkaan taalan uu soo gudbiyo weeye ugu dambeyntiina waxaa hadalka qaatay oo soo xiray munaasabadda wasiirka shaqada iyo shaqaalaha galmudug oo sheegay in xafiisyada wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha galmudug ay ka furan doonto deegaanada galmudug bacdisalaan farxad gaar ay tahay in maantay aan xafiiskii labaad ee wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha aan ka hirgelino gobolka mudug annagoo 10 casho ka hor wasaaraddii shaqada iyo shaqaalaha oo aasaaska laga bilaabay ka hirgelinay magaala madaxda galmudug inaan sidii ugaasku sheegay cadaaladii waa bilownay wasaaraddii koowaad haddaan soo furnay tii labaad mudugaan ka dhignay marka waxaan isleena halkaas cadaaladii waa ka bilowday waana kusii socdoona haddii ilaaha yidhaahdo xafiisyadaas oo heer wasaaradeed ee kala gedisan iyo kuwo kaloo hadda kusoo jira qadka oo degmooyinka gaar aan badan aan ka hirgeli doono waxay ka mid tahay waajibaadkayga shaqo waxaan ugu faraxsannahay ayadoo cid galmudug ka baxsan aysan contribution-na siin nagana gacan qaban in aan maaragtay isku tashi galmudug aan kursino waxaan si gaara ugu mahad celinayaa xafiiskaan inuu hirgalo agaasimaha guud ee madaxtooyada galmudug oo gacan hagarla-aana naga siiyey sidoo kale dhammaan sida guddoomiyaha gobolka degmada cid kasta wixii aan uga baahanay gobolka mudug waa ka helay waxaan rabaa marka inaan xafiiskan ahmiyadiisa taabto haddii ilahay idmo xafiiskan waxaan usoo dedejinay rabnaano degmooyinka kale ee gobolka mudug na inaan gaarsiino haddii ilaahay ka dhigo iyo guud ahaan galmudug waxaan ognahay bulshadayda meelaha ugu jilicsan tahay ama baahiyaha ugu daran haysata inay tahay dhalinyaradeenna oo aan maaragtay shaqada aada ugu liidato oo aynan weli helin fursado shaqo abuur ama maaragtay looga saaro shaqa la-aanta maxamed muxidiin saxan soxo galmudug TV